بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إري كوبان كورنيا إريجي مدحونها الصومالي الآن ما ننتي شلي وكتشيدي جامعة الرعسان دوكسيجا أبارسو مقعد اللي هذا برواقه شلي واي تاريخ ذو هيد سديد محرم كنا أفر بقول صدق يا أفرت الهجرية كنا بجناد لحية طبعاً كبش السديدات لبعض كون يكوي لبعتنك مدحوينه هذا الكيساس أما إيري كيساس وحاوسي وين الدفاعي دوكسي جابارسو يجمع ديسة إسلام مركانا وحاوير القاضي ضدكي إيدي دوكسي جا قضبك للدوانا يكهضي وحاندونا يا قيبك بيدا قضب ديساس أما قارك بيدا قضب ديساس إن أندول استاجو وحانكب لابيا بارستا uu sameeyay madaxweynuhu waxa uu sheegay kadib markii uu maqlay hadalhaynta ama uu arkay hadalhaynta ka jirta dugsiga abaarso ayaa waxa uu sheegay inuu lugihiisa ku tagay keligii si uu soo ogaado waxa halka ka socda waxaan uu sheegay inay u soo baxday natiijo ah in halkaasi ay tahay meel wanaagsan oo lagu hayo wax u dana ummadda iyo islaamkaba natiijadaas uga soo baxday hadaba natiijada uga soo baxday waxa ama baarista lafteeda ayaa waxa aynu ama aan iska weydiinaynaa madaxweynuhu marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanayo tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban bad ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddada yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxa la sheegay ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taas waa taas qodobka labaadna waxa laga sheegay dugsigu de ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegay inuu arkayo sidii muxuu ahaa khamri xashiishad dad wax leynaya hub saas ma meesha waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa teeda laba marka loo yimaado maxay ku sheegayaan maxay ku sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedeynayay may ku sheegayaan طبعا de waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimmaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyagaa loo soo ogaan lahaa iyagaa ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halkaa ka jira qodobka labaad ee uu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu yani la dhacsanaa arrin uu sheegay inay maalgelin weyn uu sameeyeen qolada xaruntaasi ama dugsigaasi oo waxa uu sheegay arday dabadda loo diray oo ku dhow 300 oo arday oo ka baxay dugsiga abaarso oo lagu maalgeliyay in ka badan 30 milyan oo dollar oo uga jeedo madaxweynuhu maxaa lacag badan ayaa maxaa lagu maalgeliyay waaye kaba soo qaad ba lacag baa lagu maalgeliyay tira badan lacagta qoladii bixisay ma bilaa ujeeda u bixisay ujeeda maxay ay ka lahaayeen ujeeda ma laha miya yani waxa weeye ma jacaylayna jecelihiin bay ay muxuu ahaay dugsiga halkan uga sameeyeen oo ardadeena wax u bareen oo ay dabadaha u direen ma jacayl ba miyay naga heleen miyayna u naxariisteen dadkani waxaynu kala nahay kala fikir kala diin waa yani ninka intuu ka yimi cirifka adduunka يعني محوها يقولي مي هالكن دول كان وتشاد دديس وامعي طبعا وتشاد وليه وتشاد ده وليه هنا هالكن نكشيجنا وتشاد ده وحويه إن يصوص صاران ضد إيجا لمي ده لفكرة كأجدو أو أي كشبتان كان صاران وحي هراء سيقول في شدان مشاريع ده يدونيا ضد إيجا أو موالين أو ضاعدا oo ay tababareen sanawaad badan tababareen ay doonayeen soo saaraan waxay doonayaan oo yaani waxay ugu yeedhan hal door iyo labeentii bulshada dadkii hor kacayay hogaankii
horkacaya bay doonayaan inay sameeyaan oo siyaasad ahaan horkacaya waxbarasho ahaan horkacaya caafimaad ahaan qaybtii dumarka qaybtii dhalinyarada manaaxil xayaa dhinacyada nolosha oo dhan waxay doonayaan inay noo soo saaraan dadyow inala magaca inala midab inala dal laakiin maskaxdu aanay maskaxdeennii ahayn qalbiguna aanu qalbigeennii ahayn dhaatada iyo macluumaadka iyo fikirka iyo ideolojiyada ku jirta aanay teennii ahayn aynu rabnay ay tahay ninka samaystay dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu doonayo ayay doonayaan inoo soo saaraan teeda labaad nin si cad u doonaya inuu soo saaro hogaamiyeyaal sidee baynu ugu ogolaanay dalkeenna inuu qaabkan oo kale uga shaqeeyo oo u soo saaro hogaamiyaha ay sameynaya aniga hogaamiyaha ay sameynaya ma nin gaala aniga hogaamiye wanaagsan ii sameynaya ma nin aan kala diinahay ayaa hogaamiye wanaagsan ii sameynaya wuxuu ii sameynaya mid la aragtiya buu sameynaya mid muxuu ahaayay la fikra buu sameynaya mid aniga muxuu ahaayay muuqaal ahaan iyag laakiin aan yani wax aan doonayn buu muxuu ahaayay soo saaraya xarumaha waxbarashadu ee ay fartu ku godan tahay iyo xarumaha dhaqanka ee ay fartu ku godan tahay xarumahaasi waxay keeneen waynu runta isu sheegnaa yani waxa weeye wax la dhaco maaha wax la amaanana maaha wax laga qajilo weeye wax laga xishoodo weeye in maanta kuwaa lala safto dadkaasi waxay keeneen bulshada ugu guracan adduunka bulshada aan samayn xitaa waxa uu sameeyo xayawaanku waxay keeneen labka wax ka daya ama hungureeya iyo dhadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaas bay inoo keeneen dadkeennii bay ku sii dhexdaayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku fillayd oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku fillayd inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn xarumahaas baas ee isugu jira waxbarashada iyo dhaqanka waxa ka digay oo ummadda uga digay xumaantooda iyo dhibta ay leeyihiin culimadii baa ka digtay gudidii wanaag farista ka digtay waxgaradkii baa ka digay intuba way ka digeenoo meeshaas muxuu ahaayay dowladdana way kula dardaarmeen oo ummadda ka qabta aragtida guud ee bulshadana haddii la soo hadal qaado meelahaas intooda badan waa diidan yihiin adduunka waa laga tegayaa adduunkan waa laga tegayaa fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay يعني محوها ما أنت قف كتلين كرا أو جوامين كرا أو ديدي كرا قالوا ده حيدونيسو أو إلهي رالي قلين كرا مركا ما أنت فساد بعد أي ستاي ورمضان دين الإسلام كقولك وروحي دين الإسلام كلا ده قالوا ما يوم مدن كقبو ورلقرن ما يقارته وجيرود يمن إزاي ويسود واتي إنه كسود دواتي خاتمه ونعكسنا دوكا إنه كقتنا ولي ما بدحونه خاتمه ونعكسنا كقتنا ومدن خيرها كقتنا لقرن ما يتلصين ولاني ربي قال كلن هذا أمدي إسلام كجتري لكنها كجتري هذا قوم ما هسينا يا قرب ما يحرمها نوع عصا أنت هسيان كسوق بجبينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.